الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا الله سعطان waxaa ilaa 19 bishii la soo dhaafay aan safar ku marayay qaybo ka mid ah gobolada Puntland anigoo og inay jiraan su'aalo badan waxaan jeclaaday inaan dadweynaha la qaybsado warbixinta safaradayda oo haatan gabagaba waxaan la soo kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada Gaalkacyo, Galdogob, Usaalax, Xarajaale, Beira, Rigomare, Bacadweyn, Xarfo, Burtinle, Jalam, Kalbayr, Garowe, Sulujiif, Dangoroyo, Bardho, Carmo, Boosaaso iyo qaar kale. Waxaan maanta rabaa inaan warbixin waafiya ka bixiyo socdaalkaas aan ku soo xusay. Waxay suurtoobi weyday duruufo kala duwan awgood inaan tago gobollo iyo degmooyin kale oo ay qorshaysnaa inaan socdaalkayga ku darsado. Nasiib wanaag waxaan la kulmay dalgooyin ka socda deegaanadaas aanan gaarin. Insha Allah waxaan ballan qaadayaa inaan gaari doono goboladaas aanan tagin markii ay fursaddu ii saamaxdo. waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Puntland oo meel kastoo aan tagnay aniga iyo wafdigayga noo soo dhaweeyay si walaaltinimo leh oo kalgacaltooy ku dheehan tahay kana muuqato qeyro wadaninimo iyo Soomaalinimo. waxaan socdaalkayga kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xubno ka tirsan maamulka Puntland gaar ahaan simada madax dhaqameedka waxgaradka ganacsatada haweenka dhalinyarada xulmaadiinka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Puntland. haddaba waxaan rabaa inaan dul istaago qodobo ka mid ah waxyaabihii aan soo arkay iyo warbixintii ay siiyeen bulshooyinka reer Puntland ee aan kulamada la qaatay. waxaa jira caqabado yaryar ee aan kula kulmay safarkayga balse aan go'aansaday inaan waxba ka soo qaadin kagana gaabsanayo inaan ku daro warbixintayda. waxay bulshooyinka aan la kulmay ii sheegeen anaan hubsaday inay jiraan dhibaatooyin siyaasadeed dhaqaale iyo arrimaha bulshada. haddaan ka hadlo arrimaha siyaasadda waxay dadweynuhu ii sheegeen inay jirto xorriyad la'aan iyo cadaadis aysan u suurtagelin inay si xor ah ku cabiraan fikirkooda siyaasadeed iyo kooda muwaadinimo. waxay dimuqraadiyadduna faraysaa in qofka muwaadinka ay xaq u leeyahay inuu si xor ah u hadli karo una kulmi karaan si ay u gutaan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda dastuuriga. hase yeeshee waxay ii sheegeen inaysan maanta taasi ka jirin Puntland. saxaafadda xorta in aysan cabsi awgeed uga howlgeli karin Puntland aysan gudbin karin xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka. waxay ii sheegeen in marar badan ay isku dayeen inay samaystaan qadooyin iyo fadhiyo ay kaga tashanayaan ayahooda balse ay cadaadis iyo caburin kala kulmeen maamulka Puntland. waxay kaloo ii sheegeen in kastoo ay muhiim tahay in laga gudbo nidaamka qabaliga loona gudbo nidaamka dimuqraatiga ee xisbiyada badan haddana inaysan kalsooni ku qabin in xukuumadda jirtahay ay arrintaasi daacadna ka tahay fulina karto. waxay kaloo ii sheegeen in gobolladii ku midoobay dhisitaanka Puntland 1998 ay qaar ka mid ah aysan gacanta ugu jirin maamulka qaarkoodna ay samaysteen maamullo u gaar ah. waxay kala furfurashadaas Puntland sabab uga dhigayeen maamul xumo iyo aragti la'aanta hoggaanka sare ee Puntland. waxay kaloo bulshooyinkaasi ka tirsanayeen maamulka cadaalad darro iyo sinaansho la'aan kheyraadka gobolka. waxay bulshooyinka Puntland si waafi u cabireen waxqabad la'aan la xiriirta dawladda baahida aasaasiga ee arrimaha bulshada basic social services sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha. waxa kaloo burburay waxaana laga qaban halbulayaasha dhaqaale sida wadooyinka garoomada duulista iyo dekedda. waxaa markhaati doonta ah in wadada dheer ee laamiga isku xirta Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo dekedda Boosaaso ay yihiin hantida kaliya ee laga dhaxlay dawladdii Allah naxariistay Maxamed Siyaad Barre. waxay meel kastoo aan tagno dadweynuhu ku baraarugsanaayeen in laga shaqeeyo nabadgelyada iyo xasilloonida Puntland dibna la isugu soo celiyo gobolladii iyo beerihii ku bahoobay maamulka Puntland. waxaan meel walba kula kulmay shacab u bisil nabad hogaamin wanaagsan iyo horumarin dhaqaale jiritaanka Puntlandna ay si dhab ah uga go'an tahay. waxay kaloo muujiyeen si cadna u diidanayeen muddo kororsiga xeeladaysan ee maamulka iyo baarlamaanka xilligiisu dhammaaday. tala soo jeedin iyo u nasteexayn dawladda waxaa ku habboon maamulka iyo baarlamaanka lagu soo doortay laguna dheereeyay inay ugu adeegaan xilkooda 4 sano ee 2 bilood ka dhiman tahay inay tixgeliyaan dhowraanna rabitaanka shacbiga. waxaan ku baraarujinayaa maamulka iyo baarlamaanka inaysan gelin dalka mugdi iyo khalkhal siyaasadeed oo laga maarmi karo.
waxaa mudan in mar walba danta guud laga hormariyo danta iyo maslaxadda khaaska ah. tala soo jeedin ku wajahan dhismada Puntland. dhismadu waa marjaca siyaasadeed ee Puntland, waxayna buddiga u ahaayeen una yihiin aasaaskii iyo jiritaanka Puntland. sidaa daraaddeed waxaa waajib gaar ah ka saaran yahay in mar walba dib u eegis iyo qiimeyn ku sameeyaan marxaladda uu dalku marayo. waxaan ku talinayaa inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo ay ku qiimeynayaan marxaladda ay Puntland maanta ku jirto si ay u gutaan waajibaadka ka saaran maslaxadda iyo horumarka Puntland. dhismadu waxay leeyihiin dowr iyo awood dabiici ah, moral authority, iyo kalsooni shacab ee aysan siyaasiyiintu lahayn. waa inay saas u fahmaan. aragti guud waxaa waajib ah in loo qomo maslaxadda guud ee Puntland lagana dheeraado wax kasta oo keeni kara khalkhal siyaasadeed. waxaa kaloo waajib ah in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka wixii ka haray Puntland lana doono inta maqan si ay ku jirto dabacsanaan, ehelnimo iyo daacadnimo. dadweynaha reer Puntland waxay horseed ka ahaayeen nidaam kastoo horseedi karay dimuqraadiyad iyo rabitaan shacab, waxayna ku caanbixeen samir iyo dulqaad siyaasadeed. sidaa daraaddeed waa in la dhowraa rabitaankooda iyo sharaftooda. waa in lala fahmaa shacabweynaha Puntland inay xeerinayaan midnimada, xasilloonida iyo jiritaanka Puntland. waa inaan loo qaadan inay raalli ka yihiin sida qaawan ee mararka qaarkood loola dhaqmo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.